iyo dadkan iyo ma garanaysaa محمود سليمان كون عدو جدها محمود سليمان ninka xabadda u haysta afduubana waa cadow gudaha definitely ninka dhahay madaxweyne dhageyso inaad runtii isku sheega hadaa diidantiin idinka ii taala laakiin ninka cadow gudaha waa ninka ugu soo talagalay inuu Puntland burburiyo waxa dhuludagay arrintaani waa shakhsiyaad fiiri shakhsiyaadkana si toos ah anaga aan u abaarayna qabiilna maaha qof xun shakhsina qabiil maaha laakiin sheegin baabay deedika waa la sixi karo de walaal waa in la sixi karo abwaanku waa runtiis wuxuu sheegayana waa xadiis hala dhageysto hadaa artayna wax saxdaan waa tura waana khaldan tahay wixii tuura waa khaldan yahay waa ku soconaa isku deegaan baan ka soo jeednaa subkan ma garateen haddii marka aad reer Puntland aynu kala filliqno oo ka dhigno walaalay wixii aynu kala saaro war waxaas wax kuma hagaagaan war dawladdan dhoodhoo baan su'aal kaliya weydiinaya waxa weydiin waxa hadda mission noo dhigay mission baaba noo dhigay saacad la sheegay la geliyo waxa weydiin toobigan ka carabiyay sida cad iga jawaab su'aasha sida cad iga kaaga jawaabaa waa runtii iska saraan male hadda haddii la idin duubo day ninka codkiisa haddii la duubo oo daaroodkan meesha inala degan ilaa dadkan waa qabaa'il la isu tegay la geeyo la yiraahdo cadowga gudaha iyo la iswaafajiyo iyo qabiiladu magacaabay maxaa intee saameyn oo bay la yeelan kartaa dalka sax way bal inuu ka fiiriyo ilaa waa duuba wax asfahanad fiiri aniga hadda ma indhaweyto nimantii shishaan qol ugu soo galay nin baa doodi shalayna naga deg dunka ma shakhsiyaad xun baad dishay matala islaam oo ila uraan ninka ayaa nagu soo qabanaya midna dad islaam ah mid ka tagnaa qolka ninka tuuraya ayna wallahi billahi jambal buu dhigaya ma la soo qaban karo dikra waa uga tagaya ma baa reer Puntland qofka soo hadlay reer Puntland ma wallahi qof reer Puntland ma magacaabo waa ka tagaya qolka in ma reer iska day anu marka naseexan idin ku day anu wada qolkiin inaga anu wada ka digay laakiin qolkiin waxaan leeyahay wallahi sharaftiin waxa ku jirta qofka sancawaankiisa waa la yaqaana qofka waxa soo kalaam tignin adeer abwaan dadku isku wada afkaar maaha toobigana noo fariisi nalana joogin adeer wiilka hadalku meesha waa ka maray kulligayna waa qabanay marka ay isqabta marka waxa weey hadda qof bini'aadam aniga reer kale harti uu sheega walaalo ninkan waa jambal mana noo imanayo mana soo qabanayno qolka magaciisa oo aad qolalka qabiilada lagu kala guro qolalka Puntland lagu kala geeyo la isku diro aad haddeera anagoo banaan marayno oo war Puntland iyo inaga burburin systemka yarka iyo inaga burburin khaladkiisa xataa aan si fiican u saxno baa waxa walaalo maxamed abwaan oo nala leeyahay waxba isku diraysaan qabiilada Puntland oo qofka sheega waa qof edab daran waana khaldan yahay meeshaana qabiil ma leh lamana kala xigo qof dadka xigsanayana waa run waa dadka kala geynaya Puntland ku soco abwaan kaliya baa hadlay barnaamijka loo fariisi sida u socda aniga waxaan jecelahay Puntland la wada leeyahay sideen u doonayna Soomaaliya la wada leeyahay been waxaan leenahay Puntland la wada leeyahay Puntland inta ay ka kooban tahay xildhibaanada waaweyn waa taqaana inta beelood oo degta isu tagtana waa taqaana inta shuruuc la samaystana waa taqaana kuwa kale ku soo biirayana waa jiraan oo degmooyin dama lagu soo daray weey